dowladda Ingiriiska oo dabayaaqada bishan soo saaraysa sharci si weyn uga nixin doona dad badan oo Soomaaliyeed oo rajo ka lahaa joogitaanka UK. dhanka kale hay'adda caalamiga ee ITA ama se loo yaqaano ayta ee maamusha gaadiidka hawada 80% iyo kulan maanta ay yeelan lahaayeen madax ka socota maamulka Soomaaliya oo baaqday gelinkii hore ee maanta qodobadan ayaynu ku hadli doonaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddaad hore noola joogtiin waad mahadsan tahay muuqaalka laygare aan ku bilaabay dowladda Ingiriiska ayaa dhaqan gelinaysa dhawaan sharci si weyn uga nixin doona Soomaali badan oo rajo ka lahayd markan joogitaanka UK iyo hanashada sharciga dalka Ingiriiska. hore waxa loogu heli jiray baasaboorka ama si dhalashada dalkaas muddo 5 sano marka la iska dhiibo ee dhammaan la buuxiyo shuruudaha joogitaanka UK, taasoo ahayd wax sahlan marka loo eego sharciga markan Ingiriisku doonayo inuu hirgeliyo ama se uu fuliyo. sharcigaas oo ah in 20 sano laga dhigo muddadii ahayd 5 sano, taasoo looga gol leeyahay markan in la adkeeyo ama se la yareeyo fursadaha muhaajiriintu ku heli karaan sharciga Ingiriiska. baarlamaanka Ingiriiska ayaa la sheegay dhawaan sharcigan oo xukuumadda Ingiriisku wado in loo gudbin doono dhawaan in la ansixin doono, kaasoo ka dhigan markan in la laalay rajo badan iyo rabitaan badan oo dadka muhaajiriinta ama se damacleyda ka inay ku noolaadaan UK oo ay qayb ka yihiin Soomaali badan oo targetkoodu ahaa UK markan in dib loo durkiyay rajadoodii maadaama laga dhigay 20 sano marka loo eego iyo 5 sano oo waqti aad u kala badan, fursad ahaan aad u sii kala weyn. 20 sano waa waqti cimriga qofka kala badh ama se 3 marka loo dhigo qayba, waxaana yareynaysaa fursadda hanashada qofkaasi inuu helo sharci rasmi ah oo wadanka kaga shaqaysan karo waxna kaga qabsan karo, sidoo kale sharci rasmi ah oo qofku wadankaas wax kaga heli karo dunida kalena uga talaabi karo, taasoo soo yareynaysa natiijadii iyo rabitaankii himiladii guuleed ee qofku ka filin karayay xilliga joogitaanka UK. sharcigan ayaa la sheegay dhawaan in loo gudbin doono baarlamaanka Ingiriiska isaguna oo ansixi doono dabayaaqada bisha November. waynu eegi doonaa sida sharcigaasi noqdo iyo wadada uu ku dambeeyay. markana hay'adda caalamiga ee maamulka sare ee hawada maamusha 80% ee magaceeda loo soo gaabiyo IATA ama se ayta iyo kulan maanta ay yeelan lahaayeen madax iyo wafuud ka socday maamulka Muqdisho, kuwaas oo doonaya markan hay'adda go'aan ay soo saartay dhawaan inay wax ka bedel ku samayso markana ay ku qanciyaan sheegashada dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wax ka bedelka go'aanadii ay hore hay'addaasi u soo saartay ayaa loo ballansanaa amin hore saaka, balse kulanka ayaa baaqday kadib markii hay'addu ay ka cagajiday la kulanka gruubkaas oo markan fashil weyn dushooda hoganayo. mar kale ayaa loo ballamay gelinka dambe ee maanta sida warar la xaqiijiyay oo sugan sheegayaan. waxa kale oo markan soo muuqday inaanay hay'addu doonaynin go'aanka ay soo saartay 2 cisho ka hor iyadoo ku saleynaysa warbixino ka soo baxay Mareykanka, UK iyo dawlado kala duwan oo ka tirsan kuwa tanaaday ee dunida markan in la raaco shuruucda caalamiga. dhanka kale fariimo laga soo diray Hargeysa oo ay ka soo direen ergooyinka wafuudda iyo siyaasiyiinta diblomaasiyadda ku sugan Somaliland oo kulan la qaatay madaxda ugu sareysa ee Jamhuuriyadda Somaliland ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo duulista hawada maalintii taariikhdu ahayd 13 November, taasoo sababtay markan in fariimo loo diro hay'addaas lagu sheegayo sharciyada ay Soomaaliya wado iyo fiisayaashii nidaamyadaasi inaanay ahayn kuwo qaabilsan shuruuc ka shaqayn karta Hargeysa iyo Berbera Port, kuwaas oo markan si weyn aanay hirgelkooda uga shaqayn karin. intaa waxa uu soo raacay jabsashadii adeega e-viisaha oo ahaa dhaawac weyn oo samcadeed oo soo gaaray maamulka Xamar, inkastoo ay si weyn uga muquurteen in ay sheegaan fashilkaas oo ay banaanka u soo saaraan wixii dhacay ee mar labaad xitaa helay website-kii labaad ee ay soo curiyeen. haddana waxay xoogga saareen markan inay kulan la qaateen hay'adda caalamiga ee maamusha hawada sare ee ayta, taas oo markan doonistoodu ay tahay inay ku qanciyaan sheegashada dhuleed iyagoo doonaya markan inay u sheegaan dhulka iyo hawadaasi inay yihiin dhulkoodii oo maamulkooda loo madax bannaaniyo. dhanka kalena website-kooda ay ka saaraan sharciyadii ay soo saareen ee sharciga ahaa, kuwaas oo ay raacayaan diyaaradaha dunida oo aanay iyagu markan ku qancin karayn inay raacaan nidaamkoodii maadaama hay'addii u qaabilsaneed arrimaha duulimaadku ay soo saartay warbixinta. si haddaba sharciga wax looga bedelo Soomaaliya waxay codsaday kulan degdeg oo ay la yeelatay hay'adda
oo ay soo fadhiistaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa iyadoo ku doodaysa inay sidato markan doodo sharciya oo ay doonayso hay'adan oo aan ahayn mid dawli ah inay ku qanciso inkastoo ay ku midaysan yihiin ku dhawaad 300 shirkadaha diyaaradaha kuwaasoo ka noqonaya dunida 80% duulimaadyada dulmaray inay mas'uul ka tahay hay'adaasi oo ay maamusho kana xoog badan tahay dawli badan haddana markan Soomaaliya waxa ay doonisteeda ku cadeysay kulan degdeg oo ay la yeelatay inuu yahay muhiimad iyo mudnaan u leh qodobkan halka aynu kaga baxaynaa siyaasiga dhawaan socodka ee Axmed Macalin Fiqi dhawaan si loo bixiyay xub caaro ayaa xalay tolo si weyn uga hadlay erayada ka soo baxay dhanka Soomaaliland oo uu sheegay in si weyn loogu jiidsiiyo magaciisa iyo sawiradiisa baraha bulshada marka la joogo geeska Soomaaliland waxa uu sheegay markan Axmed Macalin Fiqi inay arintaasi isaga kuleelinayso balse dhanka kale aan loo baahnayn in sidaas oo dhan loo wado waxa uu sheegay arrimaha visa ee Soomaaliya soo rogtay in markan loogu talagalay in lagu xadido ajaanibta soo galaysa guud ahaan wuxuu ugu yeeray Soomaaliya isagoo markan ku eedeeyay Somaliland iyo Puntland inay ka soo degaan argagixisada caalamiga ah oo sheegay iyagoo sito baasaboor ajaanib inay soo galaan taasoo ahayd eedayn kale Axmed Macalin Fiqi uu soo jeediyay xilli uu ka hor hadlayay kulan degdeg oo ay iskugu yimaadeen qaybo ka mid ah madaxweynaha maamulka xamar oo markan ka tashanayay sidii laga yeeli lahaa arrimaha hawada iyo visa Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay markan in loo baahan yahay inaan khasabaan ahayn midnimada aragtidan oo ka duwaneed aragtidii uu qabay toddobaadyo ka hor taasoo muujinaysa inuu bilowgii hore aaminsanaa inay khasab tahay iyo lagama maarmaan midnimo ay hesho Soomaaliya oo lagu khasbo laguna sanduleeyo jamhuuriyadda Somaliland imika si Axmed Macalin Fiqi oo u muuqda inuu runta soo arkayo inkastoo uu wali ku taagan yahay xaqiiqooyinka wax ka fog sida eedaynta aan salka iyo raadka lahayn ee uu markan ka soo jeediyay fagaaraha hortiisa inkastoo la yaab ahayn Axmed Macalin Fiqi inuu eedayn sidan oo kale soo jeediyo oo soo jeedinayay tan ka sii daran marka loo eego Somaliland oo ka madax bannaan Soomaaliya iska daayay Puntland oo ka tirsan Soomaaliya ama se lagu tiriyaba siyaasad ahaan inay iswaafaqsan yihiin ayuu ku eedeeyay in Suudaan lagaga diilo taasoo markii dambe fashil ku noqotay Soomaaliya guud ahaan oo lagu eedeeyay inay Soomaaliya isku marxaati furtay inay dagaalka Suudaan ka socdo qayb ka tahay maadaama wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliya sheegay magaalada Boosaaso oo ka tirsan Soomaaliya in lagaga diilo Khartoum iyo magaalooyinka kala duwan ee Suudaan ee gobolka Darfur oo kale taasoo muujisay inaanay jirin bisayl siyaasadeed oo uu leeyahay mas'uulkaas markan xilalka kala duwan lagu aaminay sida inuu soo noqday wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda oo uu ka dhaxlay fashil weyn markan loo dhiibay gaashaandhigga oo aanu imika la dhex joogin waxaan ahayn tuugmada beesha caalamka iyo qalabna la soo gaara dirayskaba iyo qoryo waxaan inta ahayn aanu dhaafisanayn dhanka kale guula taariikhiga aan soo hoynin muddadii uu joogay wasaaradda gaashaandhigga laguna soo jabay dhowr dagaal oo kala duwan sida dagaaladii lagu galay Shabeellada Hoose dagaalo lagu galay Jubbada Dhexe iyo dagaalo lagu galay Galgaduud dhammaantoodna guul darro ay kala kulmeen ciidamada militariga maamulka xamar kuwaas oo markii dambe ku dambeeyay inay iskaga soo baxaan kana soo huleelaan deegaano 2 sano ka hor ay tageen iyo kuwa ay joogeen 10 sano waxaasoo dhanisay waxay muujinayeen Axmed Macalin Fiqi shakhsiyadiisa iyo qof ahaan qofku yahay guud ahaan warbixinta iyo barnaamijka iyo ka hadalkiisu inta ayuu ku eeg yahay inta aynu muuqaalkan muuqaal la mid ah iskugu iman doono waxaan idin leeyahay waad mahadsan